الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أما بعد سود وهذا ولا soo fadhiista salka dhulka dhiga waa anigii iyo muujib cusub muujibka aan maanta inoo wadaana waa muujib qaali ah waa muujib qaaliya oo qofka sameeya ama la yimaadana dejinaya acla aljanna jannada halka ugu sarreysa janno kaliya maaha halka ugu sarreysa jannada ayuu gelinayaa waa maxay muujibkaasi talow sababtaas igeynaysa jannada halkeeda ugu sarreysa maxay tahay waxa weeyaan akhlaaqda wanaagsan qofka waxay geysaa jannada halka ugu sarreysa maalinta qiyaamo marka miisaanka la miisaamay acmaashaada ma aha waxa xoog badnaanaya salaadaada zakadaada soonkaaga xajkaaga cumradaada waxaasoo dhan maaha waxa cuslaynaya aad u cuslaynaya miisaankaaga waxa weeyaan haddii aad samayso akhlaaqda wanaagsan qofka waxay geysaa saan soo sheegnay acla aljanna xadiidkuna waa saxiix nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhahay waxa la weydiiyey asxaabtu waxay weydiin jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam jannada yacni way ku seexan jireen jannada xiise ay u qabaan way ku soo toosi jireen iyagoo socda maalintooda janno ay magaranaysa ay ka fikiri jireen u xiise qabeen u shaqaysan jireen markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay weydiiyeen ku dhahay nabigi ilaahayow jannada halka ugu sarreysa noo sheeg cidda degaysa wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam kiina ugu akhlaaqda wanaagsan weeyaan ka jannada halka ugu sarreysa degaya kiina ugu akhlaaqda wanaagsan weeyaan ka jannada halka ugu sarreysa degaya subxaan allah maxaa ka qurux badan inaad akhlaaq wanaagsanaato anigoo nafteeda ka bilaabaya idinkoo naftiina ka bilaabaya inaad akhlaaqdaadu ay wanaagsanaato dadka aad si wanaagsan ula dhaqanto marka lagaa xanaajiyo aadan hore xanaaqaaga u isticmaaline iskontarooli karayso marka lagu dhibo aad iska dulqaadan karayso akhlaaq wanaagsan sida lagaaga dayan karayo waxaana ugu akhlaaq wanaagsan nebiga weeyaan sala allahu calayhi wasalam dad qofka ugu akhlaaq wanaagsan nebiga weeyaane in aad kaga dayata akhlaaqdiisii anigoo nafteeda ka bilaabay inaynu kaga dayanno akhlaaqdiisii maxaa ka wanaagsan wallahi waa wax aad u qurux badan taasina waxa weeyaan sabab ka mid ah sababaha jannada lagu galo janno keliya maaha acla aljanna jannada halka ugu sarreysa qofka waxa geysa waa akhlaaqda wanaagsan subxaan allah bal ka waran qof baa kaa soo horbaxay waad u dhoola caddaysay qof baa dhibaato kuu geystay waad iska cafisay qof baa wax kugu sameeyey waad u dulqaadatay qof baa xoolahaagii dhacay waad iska samirtay akhlaaq wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdiisa wanaagsan waxaa ka mid ahaa inuunan qof weligii ka aarsanba weligii intuu noolaa qof kamuunan aarsanin qof wax ku sameeyey kamuunan aarsanin bal wuu cafin jiray subxaan allah wuu cafin jiray haddaba akhlaaqda wanaagsan waxa weeyaan jannada halka ugu sarreysa dadka waxaa geysaa aynu akhlaaq wanaagsan la nimaano aynu nebiga kaga dayanno aynu dadka si wanaagsan ula dhaqanno si aynu u hananno ilaan dhammaanteen jannaynu wada rabnaa waxaynu u noolnahay aynu u soo toosnaa aynu u salaadnaa aynu u soonnaa aynu sadaqa u bixinnaa aynu acmaasha wanaagsan ula nimaannaa waxa weeyaan janno inaan galno acmaasha kiisa ugu wanaagsanna waxa weeyaan akhlaaqda wanaagsan nabiga sala allahu alayhi wasalam waxa uu dhahay aqrabukum ilaya manzilan aktharukum salaatan calay aw axsanukum khuluqa yani waa laba riwaayadood ay kaliin axsanukum khuluqa ka iigu soo dhow maalinta qiyaame iigu soo manzilo dhow yani iigu soo boos dhow waxa weeyaan ka idinku badan ee aniga salligayga badiya ama waxa weeyaan ka idinku akhlaaqda wanaagsan weeyaan ka iigu soo manzilo dhow maalinta qiyaame jannada subxaan allah nebiga jaarkiisa inaad noqotid maadan rabin nebiga jaarkiisa maxaa iga dhigaya waxaa kaa dhigaysaa akhlaaqda wanaagsan aynu la nimaana akhlaaq wanaagsan dadka qaar waxaad arkaysaa akhlaaq daradooda wayba ku faanayaanba akhlaaq xumay ku faanayaan hees la soo qaaday ku faanayaan waxay ku faanayaan dance iyo isruxrux rag iyo dumarba ma kala reebayo waxay ku faanayaan qashin oo dhan waa dembi ayay ku faanayaan akhlaaq daro ayay ku faanayaan subxaan allah kuwaas waa kuwii ilaahay ka sheekeeyey marka uu dhahay afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahdaa am man yamshi sawiyan على صراط مستقيم مسكو مد وجهك ku socda
noloshii intuu kala qallibay yani wejiga ku socda yani wixii acmaashii wanaagsanaa xumaan buu arkaa acmaashii xumaydna wanaag buu arkaa noloshii uu kala qallibay awgeed ilaahay wuxuu dhahay misku mid baa mid wejiga ku socda waa kaa kala bedelay nolosha wanaageedii iyo mid wada toosan ku socda misku mid baa siraat almustaqiim qof ku socda wadada tii ugu toosnida badnayd qof ku socda misku mid baa iyo qof noloshii intuu kala qallibay ilaahay dhahay wejigu ku socda isku mid maaha markaas aynu ka waantowno nafteyda anoo ka bilaabaya aynu ka wada waantowno akhlaaq darada aynu u gudubnana muujibkeena xiga inagoo halkan fadhina ma bedbedelkii wuu dhammaaday waayo waqtigii ayaa soo yaraaday ka raali ahaada alxamdu lilah wasalaatu wassalaamu calaa rasuuliillah ama bacd soo dhowaada mar labaad walaalayaal muujibaat iljanna waxa weeyaan barnaamijkan uu ka hadlaa sababaha jannada lagu galo sababaha jannada geynaya qofka bini aadamka ah weliba qofka islaamka ah nabiga sallallahu xadiisyadan oo dhanna waa wada saxiix xadiis kasta waa saxiix nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay jannada bartamaheeda inaad degtaan ma rabtaan yani jannada dhexdeeda bu'da jannada inaad degtaan ma rabtaan yani yaan u ballan qaadaa nabiga ayaa ballan qaaday waa aya qofkan ballan qaadaya waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay yaan u ballan qaadaa jannada bu'deeda nabigi ilaahay anaga noo ballan qaado noo sheeg waxaanu samaynayno muxuu yahay waxaan ku helayno ballantaada si inoogu oofto nabiga sallallahu alayhi wasallam muhammad biabihi wa ummi sallallahu alayka allah allahumma salli ala sayidina muhammad ku salliya ayaa ku ballan qaadaya wama yantiqu anil hawa hawadiisa iyo shahwaadkiisana ma raaca nabigu wuxuu ku hadlo dhan waa waxyi wuxuu ku ballan qaadaya bu'da jannada maxay tahay camalkii geynaya yaan hadal idinku daalinin waxa weeyaan in aad ka tagto hadalka inaad ka tagto aan idhaahde beenta xitaa markaad kaftamayso inaad iska daysa beenta xitaa marka aad kaftamayso waa muujib ama sabab ka mid ah sababaha jannada lagu galo inaad beenta iska daysa xitaa markaad kaftamayso waa sabab ka mid ah sababaha jannada lagu galo walidaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay yaan u damaanad yaan u ballan qaadaa yaan yani damaanad yaan u damaanad qaadaa bu'da jannada bartamaha jannada hadaan anaga noo ballan qaad nabiga ilaahay maxaa tahay arrinkaas wuxuu dhahay sidaas uu sheegay beenta inaad wuxuu ka soo bilaabay marka koobaad in aad iska dayso muranka xitaa haddii aad saxsan tahay jannada halkeeda hoose ayaa anigana ku ballan qaadaya buu dhahay wuxuu ku xigsiiyey inaad iska dayso beenta xitaa haddii aad kaftamayso anigana jannada bartankeeda bu'deeda ayaan ku ballan qaadaya buu dhahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku saddexeeyey yaan jannada halkeeda ugu sarreysa u ballan qaadaa qofka akhlaaqda wanaagsan qofka akhlaaq xumada ka taga lidalik waxyaabaha ugu badan ee dadka naarta geliya waxa weeyaan beenta iyo farjiga ilaahay aanoo dambi dhaafo aamiin dhaha waxa ugu badan ee dadka jannada geliyana waa runta soo runtu waxay ka mid tahay inaad run ku hadasho markasta waxay ka mid tahay sababaha jannada lagu galo been haddaad iska daysa yani micnaheedu waxa weeyaan runlow noqo nabiga sal slam wuxuu dhahay qofka runta caadaysta ilaahay agtiisa iyo mala'il aclaa waxaa looga naanaysaa oo laqab looga dhigaa qofkaas as-siddiiq runlow ayaa loo bixiya qof markuu runta caadaysto mala'il aclaa samada iyo malaa'igta iyo waxa ku sugan iyo ilaahayba waxay u bixiyaan qofkaas runlow ilaahay agtiisa waxaa loogu qorayaa runlowgii qofka hadduu beenta caadaystana sidoo kale waxaa loogu qorayaa ilaahay agtiisa beenaalihii subxaanallah walidalik sababaha jannada lagu galo waxaa ka mid ah runta inaad caadaysato ood beenta iska dhaafto xitaa haddii aad kaftamayso subxaan allah ilaahay agtiisana markaas runta markaad caadaysato waxaa lagaaga qorayaa as-siddiiq qofkii runta badnaa allah inaga dhigo kuwa run badan maxaa badanaa dadka intay dad soo hor fadhiistaan inagaga qoslinaya been subxaan allah kuwaas ma xadiidkan inaan maqlin gaadhsiiya haddaad taqaanaan dad saasoo kale ah commentiga ku mention gareeya ama gaadhsiiya si ay uga waantoobaan jannada halkeeda ugu sarreysa ama bu'deedana ay u hantiyaan allah inaga dhigo kuwa jannada hantiya dhammaanteema janno waynu rabnaaye allahuma aamiin waxaanu ku kulmaynaa muujibadeena inoo xiga biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan kaga tegaynaa nabadii ilaahay dushiina ha ahaato